sidoo kale muuqaalkan sii share garay, like ta hilmaamin, sidoo kale follow page dheh. Mahadsanidin daawadayaal. Isagu wuxuu jiraa 100 sano. Wuxuu dhashay 1921. Intaas wuxuu cunayay hilibka ceeriinka ah. Waa rugcada ka soo qayb qaatay dagaalkii labaad ee dunida. Wuxuu khibrad u leeyahay sida dumarka loo adoonsado ka hor inta uusan guursan. Hadda wuxuu ku guursaday gabadhan idin muuqata, waliba isagoo 100 jir ah. Xaaskiisa ayuu hadda ku yiri, tani waa calaamad muujinaysa jacaylkeena. Labadeenu weligeyn waan isjeclaan doonaa. Intaas kadib asxaabtiisa ayaa u sacbiyay, iyagoo ka helay jiliinka uu ku qanciyay xaaskiisa. Hadda waxay u muuqdaan kuwa jacaylkooda muujinaya oo romantic sameynaya. Walow aan la ogeyn waxa u qarsoon 100 jirkan hablaha adoonsigooda ku caan baxay. Waxa la weydiiyay, maxaad naag u qaban kartaa oo aad ugu taal, adiga ayaaba duq ah. Wuu dhoola cadeeyay, wuxuuna ku jawaabay, wax kasta ayaan u qaban karaa. Oo wuu sharaxay waxa uu u qaban karo, isagoo iska fogeeyay inuu duq yahay. Wuxuu yiri, waqti hore ayaan bilaabay cunista hilibka ceeriinka ah, waana sababta aan dhaqsi u duqoobi waayay. Wuxuu intaas ii raaciyay, waqti fog ayaa iigu dambeysay jirro ama xanuun oo sanadadan man xanuunsan. Waan ogahay 100 sano ayaan jiraa, laakiin 20 sano markaan jiray ayaa jirro iigu dambeysay. Wuxuu yiri, waad ii jeedaan, weli nin adag ayaan ahay, oo waxaan mararka qaar tababar siiyaa askarta wadankayga, maadaama aan ahay rugcada ka soo qayb qaatay ama ka soo dagaalamay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa la weydiiyay, ugaarsiga xayawaanada, xayawaankee ugu jeceshahay ama aad xiisaysay hilibkiisa, maadaama aad tahay nin ugaarsada ah. Wuxuu ku jawaabay, cawsha. Oo hadda ka hor waxaan xasuustaa inaan Tanzania raacdo uga bilaabay cawsha, anigoo ugaarsanaya, isla markaana aan weli qaban inay ila gashay dalka Burundi. Cawl ayuu raacdo uga bilaabay dalka Tanzania, waxayna la gashay dalka Burundi isagoo ceyrsanaya oo aan weli qaban. Wuxuu yiri, maanta waa maalinta arooskeena. Waa maalin nagu qaali ah aniga iyo xaaskeyga. Anigu waxaan jiraa 100 sano, iyaduna waxay jirtaa 47 sano. Waan ogahay way iga yar tahay, laakiin aad bay ii jeceshahay, wayna i jeclaan doontaa. Fadlan daawade YouTube channelkeena subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalkan sii share garay, like ta hilmaamin, sidoo kale follow page dheh. Mahadsanidin daawadayaal.